Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqod wanaagsan. Muuqaalkan maanta waxaan kaga hadlayaa sida uu qofku ku baran karo markaasi back end amaba uu ku noqon karo full stack developer. Muuqaalkii hore waxaan kaga soo hadlay sida uu qofku ku noqon lahaa markaasi programmer si dhaqso leh. Kadib su'aalaha qaar aan akhriyay ayaa markaasi waxaan ka dareemay inay dadku markaasi doonayaan inay ogaadaan qaabka uu qofku ku baran karo markaas qaybta back endiga ama full stacka. Sababtaan full stack u raacinaya waxa weeyaan markaasi qofka marka uu noqonayo back end developer ama uu ka shaqeynayo markaas qaybtaas waxaa khasab ku ah inuu markaasi yaqaano HTML iyo CSS iyo JavaScript markaas. Waxaan ka wadaa qaybta front endiga. Sababtoo ah waxyaabaha uu sameynayo ama back endiga shaqada uu qabanayo waxaa soo gudageli karaya marmarka qaar oo uuna ka maarmayn markaas HTML iyo CSS. Ma sheegin inuu qofkii back endiga uu isagu yahay qof ababka sameynaya ama applicationada mobilada oo isticmaalaya markaasi luqado ka duwan luqadaha kale sida tusaale ahaan Swift oo loogu talagalay markaa khaas ahaan in lagu sameeyo applicationada iOS amaba mobilada iPhone-ka markaasi, amaba uu isticmaalaya markaas Java oo uu dhisayo ababka lagu sameeyo markaas Java loogu talagalay Android-ka mobilada Android systemka ku shaqeeya, amaba uu isticmaalaya markaas luqad kale oo imika iyadu aad caan u ah oo lagu dhisa markaas applicationada mobilada haddii ay ahaan lahaayeen Android iyo iOS oo loo yaqaano markaasi Dart iyo Flutter. Marka warka oo dhan marka lasoo duuduubo qofkii back endi markuu baranayo waxaa markaasi muhiim noqonaysa inuu qayb front endiga uu wax ka garanayo. Qofkii marka uu labadaba garanayana full stack baa la idhahdaa. Marka taas baa keenaysa inaan idhaahdo qofka doonaya muxuu ahaa inuu noqdo back end ama full stack. Taas baa marka keenaysa inaan isku mid ka soo qaado oon idhaahdo back end iyo full stack waa isku mid. Yani toos isku mid maaha, laakiin waa fahmi kartaan sidii iminkaan soo sharaxay. Dariiqada uu qofku qaadi lahaa markaas aniga ahaan muxuu ahaa haddii maanta liigu odhan lahaa soo bilow oo waqtigii bilowgii halkii aad ahayd kasoo bilow sidii aan u bartay si ka duwan baan run ahaantii u baran lahaa. Sababtoo ah waxay igu qaadatay 2 sano ilaa inta u dhaxaysa 3 sano inaan markaasi barto luqadaha programmingka. Waana waqti aad u dheer. Haddii markaas fikradan iminkaan haysto iyo waxaan aan garanayaan waqtiga lahaan lahaa ama qof igula talin lahaa marka taladan iminkaan ku siinay weysiin lahaa waqti aad intaa ka gaaban ay noqon lahayd. Markaa waxa laga yaabaa inay noqon lahayd 8 bilood ama 10 bilood amaba sanad oo kale. Sababta keentay waxay ahayd hal mar ayaan isku dayay markaas in aan dhowr luqadood barto. Sida tusaale markii koowaad waxa aan qaatay Java iyo C#. taasaan markaas in muddo ah baranayay. Labadaasaan markaasi ku dhisay muxuu ahaa gamem, aan ku dhisay websiteyo, aan ku dhisay system oo ah school management system. Waxyaabo badan aan kusii sameeyay markaas. Kadib markaan labadaa dhameeyay ayaan hadana ku xigsiiyey Python iyo JavaScript. Handara markaan iyagana in muddo ah baranayay ayaan handara markaasi bilaabay Swift iyo SQL ama SQL kolba saa u taqaanid. SQL waa luqad markaas loo isticmaalo database systemka. Marka waa dareemi karaysaa yani waxyaabo badan baan hal mar isku wada qaatay. Marka waxay noqonaysaa qofkii in uu waqti dheer ay ku qaadato inuu barto. Marka talada aan anigu maanta bixin lahaa, talada aan maanta markaasi bixin lahaa ku siin lahaa waxay tahay in aad markaasi ugu horeyn yani haddii imika aad bilow tahay ha ku bilaabin markiiba back end. Way kugu adkaanaysaa. Waa baran kartaa, waa samayn kartaa haddaad dadaashid, laakiin way kugu adkaanaysaa. Sidaa awgeed haddii aanad programming waxba ka garanayn just front endiga ku bilow HTML iyo CSS kadibna JavaScript ku xigsi. Markaad intaa kasoo dhammaatid kadib bilow markaas inaad qaybta back endiga aad baratid.
qaybta backendiga aan ku talin lahayn waxa weeyaan haddii aad javascript ku xigsiisay markii aad html iyo css dhamaysay waxaan ku odhan lahaa markaa waxaad bilowdaa react iyadu waxa weeyaan library ay leedahay javascript oo markaasi aad u fududeydisa in la dhiso markaasi website-ya casri ah oo markaasi application waaweyn oo website-ya lagu dhiso marka haddii aad html iyo css aad ku xigsiisay javascript waxaad bilowdaa react iyo node marka react kasoo dhamaatid node ku xigsi node waxaa loo isticmaalaa isaguna waa system markaasi loo isticmaalo backendiga wuxuuna isticmaalaa luqadda javascript marka kuguma noqonayso wax luqad cusub inaad baratid sababtoo javascript baad sii garanaysay kuguma adkaanayso markaa node iyo react inaad baratid dariiqa labaad waxa uu noqonayaa markaasi haddii aanad javascript doonayn oo iminka html iyo css aad dhamaysay ood ku fikiraysid muxuu ahaa inaad markaasi backendiga baratid oo aanad markaasi javascriptna doonayn inaad baratid waxaad qaadan kartaa markaa python waa luqad aad iyo aad u fiican oo popular ah iminka waqtigan la joogo sida awgeed python muxuu ahaa waxaan oran lahaa inay tahay choice fiican python markaad si fiican u baratid waxay leeyihiin python waxa uu leeyahay laba framework oo la yidhaahdo Django iyo Flask oo lagu dhiso markaa website-yada Flask way fiican tahay laakiin waxaan ku talin lahaa inaad markaasi Django baratid marka aad Python dhamaysid kadib marka aad Python iyo Django si fiican u baratid waxaan ku odhan lahaa waxaad ku xigsiisaa markaasi luqad loo isticmaalo database-ka waxaad markaa baran kartaa SQL ama SQL intaasaan kusoo gabagabayn lahaa muuqaalkan waxaan idin rajeynayaa markaasi nasiib fiican iyo dadaal markaasi tan iyo intaan muuqaalka dambe ku kulmi doono nabadee